بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كله ونكسن halkani waa daalacan media daawadayaal intaanan u galin warbixinadeena fadlan haddii aad ku cusub tahay saar subscribe share like and comment waana ku mahadsan daawadayaal markale kulan wanaagsan xubinteen waxaynu ku soo qaadanaynaa hogaamin sare ka tirsan jabhadda TPLF iyo maleeshiya la socotay oo lagu qabtay gudaha dalka Suudaan militariga dowladda Suudaan waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen hogaamiye ka tirsan maleeshiyada Tigreega TPLF oo ay la socdeen xubno ka tirsan qoyskiisa ilaaladiisa khaaska iyo maleeshiya kale ila dhanka ammaanka oo lagu sooyaa oo la hadlay warbaahinta Sudan Tribune ayaa waxay u sheegeen in sirdoonka militariga Suudaan ee ka tirsan qaybta labaad ee ciidanka dhulka ee ku sugan deegaanka Gadaref ay gacanta ku dhigeen hogaamiyahaas oo watay lacag aad u badan iyo dahab inkastoo aan magaca taliyahaasi la shaacin haddana waxaa la sheegay in isaga kooxda ilaaladiisa khaaska iyo qoyskiisa lagu qabtay deegaanka Alow oo ku yaala xuduudka ay labada dal wadaagaan waxaa kaloo la sheegay inay ciidanka Suudaan ku qabteen nin taliyahaasi lacag dhan 5 bilyan oo gini tiro badan oo dahab ah qalab guri iyo laba gaadiidka raaxada oo qaali ah dhinaca kale taliyaha ka tirsan TPLF kooxda maleeshiyada la socotay ee la qabtay waxaa lagu tuusayaa inay ku lug lahaayeen weerar hore ugu dhacay deegaanka lagu magacaabo Greater Al-Fashaqa area ee gudaha xuduudka dalka Suudaan waxaa kaloo la sheegay in maleeshiyadaasi ay maamul jireen dhul balaaran oo ay leeyihiin beeraley iyo xoolo-dhaqato ku nool deegaanada lagu kala magacaabo Majaaj Alow iyo Alakadi oo u dhow xuduudka ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Suudaan taliyaha maleeshiyada TPLF oo lagu qabtay xuduudka Suudaan waxaa kaloo la sheegay in maleeshiyadiisa 5,000 oo akris oo dhulbeereed ku lahaayeen deegaanka Alow muddo 10 sano isagoo dalagyada ka soo baxay beertiisana uu iibgeyn jiray galbeedka gobolka Tigreega maamulayaasha Itoobiya waxay bilaabeen inay ugaarsadaan hogaamiyaasha TPLF ee ka soo cararay magaalada Mekelle oo maalinta Isniinta ee la soo dhaafay ay dowladda Itoobiya ay la wareegeen wararku waxay sheegeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha TPLF ay u farxadeen deegaanka buuraleyda halka kuwa kalena ay ka gudbeen xuduudka dalalka Suudaan iyo koonfurta Suudaan sidoo kale dowladda Suudaan waxay hore u ballanqaaday inay dowladda Itoobiya la shaqeyn doonaan si looga hortago maleeshiyada TPLF ee ku dhumaalaysanaya gudaha dalka Suudaan kumanaan qof oo rayid ah ayaa lagu dilay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega halka in ka badan 46,000 oo kalena ay qaxooti ahaan u soo galeen ama u galeen gudaha Suudaan dagaalku ka qarxay gobolka Tigreega bishan November 4.